waddan walba dadka ku nool waxa ay leeyihiin caadooyin dhanka guurka ah. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa dhaqamada guurka ee ugu yaabka badan. intaanan gudagelin, haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. jasiiradda Greenland, waqooyiga Mareykanka. waxa ay leeyihiin dadka dega baadiyaha jasiiradda Greenland dhaqan la yaab leh. ninka waxa uu sameynayaa habeenka arooska, haweeneyda uu aroosi rabo timaha ayuu ka soo jiidayaa ilaa gurigiisa uu ka keenayo, iyadoo dadka oo dhan ay daawanayaan. Punjab, Hindiya. waxaa ka jira dhaqan ah dhowr nin in ay guursan karaan hal haween. waxba ha la yaabin, waddanka Hindiya dad ku nool waxa ay leeyihiin dhaqan ah in gabadha 5 nin ama ka badan ay guursan karaan kadib marka ay ka heshiiyaan waqtiga ay mid walba u dhaxayso. haddii ay uur qaado oo ay dhasho ilmaha koowaad, waxaa leh ninka da ahaan ugu weyn, kan labaadna waxaa leh midka da ahaan ku xiga, sidaa ayayna ku qaybsanayaan carruurta ay dhasho haweeneydaas. qabiilka Soorma, Itoobiya. waxa ay caan ku yihiin in ay darooliyaan furuurta ama burshinta hoose ee gabadha kadibna la geliyo caag ama wax wareegsan. gabadha markii ay yar tahay lagu bilaabayaa in furuurta hoose laga darooliyo oo caag yar la geliyo, markasta oo ay kortana caag ka weyn ayaa la gelinayaa kii hore. shayga ku jira furuurta gabadha haddii uu weyn yahay, maharka laga qaadayna ninka aad ayuu u badnaanayaa. waxaana sidoo kale shardi ah gabadha marka la guursanayo in ilkaheeda hoose maqan yihiin, caaggaasna furuurta ugu jiro. qabiilka Jacliin, Suudaan. garaacistu waa caado hore oo ay gundhigeen wadaadada qabiilkaas, jiilka ka dambeeyana ay raaceen. inta aan la isku mehrin wiilka iyo gabadha ayaa wiilka waxaa la keenayaa madal ay joogaan dadka ka socda labada reer. walaalaha iyo aabbaha gabadha waxa ay soo qaadanayaan jeedal, wiilka ayayna la dhacayaan jeedal. waxaana shardi ah in uusan wiilka xanuun muujin, haddii uu xanuun muujiyana lama siinayo gabadha. Amazon, koonfurta Mareykanka. 7 habeen ka hor arooska, ninka waxa uu xadayaa digaaga tirada ugu badan ee uu ka heli karo magaalada uu ku nool yahay. kadibna marka uu kariyo waxa uu cunayaa madaxa digaaga, lugaha digaagaasna waxa uu ku kor daadinayaa sariirta gabadha uu rabo in uu arooso. Scotland. dhaqamada la yaabka leh ee waddanka Scotland waxaa ka mid ah dhaqanka ah in aroosada lagu tuuro ama lagu daadiyo wax kasta oo uraya sida ukunta halawday iyo cuntooyinka qurmay, kadibna lagu soo wareejiyo daafaha magaalada iyadoo uraysa. Shiinaha. waxaa ka jira dhaqan la yaab leh. muddo bila ayay ooynaysaa gabadha la aroosayo. xilliga arooska muhiimad gooniyaha ayuu u leeyahay. labada qof ee is aroosaysa bil ka hor inta uusan arooska dhicin ay gabadha oohinta bilaabaysaa. 10 maalin kadibna waxaa ku soo biiraya oohinta gabadha hooyadeed. 10 habeen kadibna ayadeed ayaa ku soo biiraysa. dhammaadka bishana qoyska inta gabar ee u joogta ayaa wada ooynaya, iyagoona ugu hambalyeynaya arooska u soo dhow. Mauritania. inta badan gabdhaha waxa ay jecel yihiin in ay caato ahaadaan marka la aroosayo, laakiin arrintu sida way ka duwan tahay. Mauritania, haweenku waxa ay ku dadaalaan sidii ay ku noqon lahaayeen kuwa aad u cayilan, sababtoo ah gabarba gabarta ay ka cayilan tahay ayay raggu doontaan. marka sidaa ayay ku jecel yihiin haweenka Mauritania in ay noqdaan kuwa aad u cayilan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin in aad booqato channelka kale Maanta Technology.